isku soo noqod wanaagsan intii lala socotay barnaamijka qisooyinka jaceylka waxaan toddobaadkii tagay isku dhaafsanay haddii aad like-ta ku bubtaan qisada jaceylka Hodan Abdirahman iyo Mursal Muuse aan inaguna idin qaadaa dhiga doona qaybaha ka heray qisadan maadaama aad balantii ka soo baxdeen waxaan idin siinaa qaybta labaad oo kun jeer ka xiiso badantii hore haddaba daawade maxaad kala socotaa heesta nolosha cusub soo dhaweeyay Maxamed Saciid BK ku luuqeeyo mase ka war haysaa saameynta ay ku leedahay jaceylkan soo kufay handana ka kuna soo dhawaada barnaamijka qisooyinka jaceylka iyo qaybta labaad qisadan Hodan Abdirahman iyo Mursal Muuse kadib markii Mursal Muuse yiri sahaltaan ku kulunay marwadayda lama simo jawaabta Hodan Abdirahman oo dad badan sugayeen ma noqon sidii loo maleynay Hodan oo muujinaysa jaceylkeeda iyo istaylka haya ayaa Mursal cod dheer ku tiri waliba intaas uguma herin waxay u raacisay inaan kala duruqsanaano kulay danteena ma aha ku doortay ila dadaal jaceylkana ila daryeel waxba ka dhacay runtii jaceylku indama leh adigoo lagu xumeeyay ayaad handana xiimaysaa xulufadii Mursal oo xilligaas Hargeysa ku xunsanaa ayaa mar qudhax isweydiiyay jawaabta ay ka bixin karaan heestii dugsi talow maxaan idhaa ayay arrimo ku soo biyo shubatay mayay hadraaw ay hawla gaartay inkastoo Mursal oo markii dambe xantiisa u sheegtay abwaan Jeylaani wax ku dhig waxa ajiilka soo koraya intaan geedweyne la aadin geed yaran la wada fadhiistay qisadan silsilada oo ay qayb weyn ka tahay qadar saliimo ayuu Mursal ugu sheekay Jeylaani isagoo u raaciyay taariikh kooban oo ku saabsan Hodan Abdirahman وفنانات عن كواحد جعيل كتاس وسلجيد يهي مجالة مينيابوليس عرقا iyo Mareykanka Hodan waxay ku dhalatay isla markaana ku soo barbaartay Boorama gobolka Awdal Somaliland sanadkii 2001 ilaa sanadihii 2002 waxa ay